waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah dowladda Itoobiya oo shaacisay magacyada xubno sarsare oo laga dilay kooxda Al-Shabaab ganacsatada qaadka keenta Muqdisho oo go'aan xasaasi ah ku dhawaaqeen iyo maxaa ilaa iyo hadda kalluunka Soomaaliya loogu dhoofin lahaa Kenya qodobadaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubal News fadlan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada ku xiran janalkan ee ka hela wararka aan ku baahino aragtidiina hanaga ilmaamina laagtiina waa inoo dhiirigelin muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan in ka badan 100 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ah ayaa ku dhinteen tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo saacadihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan uga dhacay xadka ee wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka Aato ee gobolka Boqol halkaas ayaana waxa ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada liyu booliska ee ismaamulka Soomaalida galbeed oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarkan ay ku qaadeen magaalada oo xilligaasi ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tageen inay gargaar gaarsiiyaan dadka ee dagaaladu saameeyeen iyo saraakiil kala duwan oo ka socda dhanka dowladda deegaanka Soomaalida qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxa uu sheegeen in Al-Shabaab ee weerarka oo socda qiyaastii saacado badan ay ku bilaabeen hoobiyaal iyo gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyay aadan maxamed nuur saransoor oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Aato ayaa sheegay in Al-Shabaab ee dagaalkaasi u adeegsadeen gaadiidka gaashaaman oo sidoo uu sheegay hore uga qaateen saldhigyo ee weerareen oo ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika aadan saransoor waxa kale oo uu sheegay inuu indhihiisa ku arkay dhowr iyo 10 qof oo meedada wuxuuna intaas ku daray in Al-Shabaab ay isku dayeysay inay magaalada qabsato balse ciidamadii ka soo horjeeday iska caabiyeen dhanka kale dowladda dalka Itoobiya oo war ka soo saartay dagaalkaas ayaa ku dhawaaqday dilka 3 kamid ah hogaamiyaasha sarsare ee kooxda Al-Shabaab sidaasina waxa lagu sheegay qoraal militariga laga soo xigtay oo warbaahinta dowladda Itoobiya lagu baahiyay waxayna xubnahan ay kala ahaayeen Fuad Maxamed Khalaf Shongole oo ahaa madaxa abaabulka iyo tashkiilinta kooxda Al-Shabaab kana mid ahaa madaxda sarsare ee kooxdan dowladda Mareykanka ayaa ku raadinaysay xogtiisa in la keeno malaayiin dollar shakhsiga labaad ee Al-Shabaab laga dilay saacadii ugu dambeeyay dagaalada xoogiisa ka dhacay xadka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ah Abdul Aziz Abu Mus'ab oo ahaa afayeenka kooxda Al-Shabaab ee dhinaca howlgalada sidoo kale shakhsiga saddexaad ee la dilay waa Ubayd Nuur Ciise oo ahaa mas'uulkii Al-Shabaab u qaabilsanaa abaabulka xuduudka Itoobiya iyo gobolka Boqol xubnahan waxay qayb ka ahaayeen duulaankii shabaab ee ku qaadeen saacadii aanu ka soo gudubnay deegaano kamid ah xadka gobolka Boqol uu la wadaago dowladda deegaanka gaar ahaan deegaanka Aato ma jirto ila ka madax bannaan sheegashada dowladda Itoobiya oo xaqiijin karta warkan iyadoona shabaab wali aysan ka hadlin arrinkaasi dagaalkan ayaa daba socda dagaalo ee maalmihii la soo dhaafay kooxdan Al-Shabaab oo gudaha Itoobiya kula galeen liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo dib ugu laabtay magaalada Jigjiga kadib muddo 7 oo uu ku maqnaa furimaha dagaalka ayaa warbaahintu u sheegay in ciidanka deegaanka ay jabiyeen qorshe sanad ay Al-Shabaab diyaarinaysay isla markaasna ay ku burburiyeen wax ka yar 3 cisho madaxweyne Cagjar ayaa sidoo kale sheegay inay sameynayaan istiraatiijiyad ay Al-Shabaab uga hortagayaan ka hor inta aysan soo galin xuduudda Itoobiya taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Tozen ayaana sheegay maalin ka hor in isku dayga Al-Shabaab ay ku doonayso inay isku ballaariso Itoobiya inteeda badan la xakameeyay hase yeeshee ee Al-Shabaab qorsheynayso weerar kale bilaha soo socda sida ay sheegeen xogo dhinaca sirdoonka qiyaastii 500 oo dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa 50 mitir gudaha u galeen Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay ka hor intaanan dagaal looga soo saarin dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida galbeed ee Itoobiya si kastaba xiisada dagaal ayaa wali ka jirta xadka ee wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya
waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan labada dhinac waxaana mar walba laga baqdin qabaa inuu dib u qarxo dagaal xoogan maadaama al-shabaab weli isku dayayaan inay gaaraan hadafkooda isla markaasna u argudaan xubnaha badan ee laga dilay balse ay u suuragal ilaadahay inay u tallaabaan dhanka xadka Itoobiya. geesta kalena ganacsatada qaadka keenta magaalada Muqdisho ayaa go'aan xasaasi ah ku dhawaaqeen. ganacsatada qaadka mirooga keenaan ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen inay joojiyeen qaadkii ay keeni jireen. guddiga ganacsatadan oo ku mideysan dalada qaadka mirooga keenta ayaa sheegeen inaysan magaalada qaad keeni doonin muddo 2 maalmood maadaama ay la kulmeen culays isbiirsaday. ugu horeen guddiga waxa ay sheegeen inay u mahadcelinayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay sheegeen inuu ka shaqeeyay dib u fasixidda keenista qaadka maadaama ay hore u joojisay dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. guddiga ayaana tilmaameen in dhibaato ay ka haysato siyaasiyiin iyo xildhibaano hore oo dalaaliin ah iyo qiimo kor lagu sameeyay canshuurta laga qaado qaadka iyo sidoo kale qiimo kordhin ay sameeyeen beeraleyda qaadka laga soo iibinayo. waxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbadeen inay la qaataan kulan si ay ugu soo bandhigaan dhibaatada lagu hayo. waxaan ka cabanaynaa shakhsiyaad doonaya in suuqa inagala baxaan oo ah siyaasiyiin iyo xildhibaano hore oo raadinaya shatiyo ganacsi. waxaa kaloo aan sheegaynaa inaan joojinay keenista qaadka muddo 2 maalmood ah. qiimo kororka beeraleyda ee sameeyeen darteeda 3 maalin ayaan keenay qaadka waxaana ku bilownay lacag dhan 800 haddana waxa ay maraysaa 1200 waana qiimo koror siyaada ah. waxaan oo sii dheer canshuur siyaada ah. waxaan madaxda ka dalbanaynaa in arintaasi wax ka qabtaan ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada qaadka mirooga keenta. guddigu waxa ay sidoo kale sheegeen in qarashaadka beeraleyda qaadka ay kordhiyeen iyo suuqa Muqdisho oo dhaqaale xumo la daala dhacaya aysan ahayn kuwa iskaafin kara sidaasi daraadeedna shaqo joojintooda ay soo dadejisay. 3 maalin oo uu qaadka Kenya laga keenayay imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa suuqyada lagu kala iibsanayay qiimo aad uga badan qiimihii hore loogu iibsan jiray waxaana aad uga raqiisan midka laga keeno dalka Itoobiya. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa maxaa ilaa iyo hadda kalluunka Soomaaliya loogu dhoofin lahaa Kenya. heshiiskii ay dhawaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ku kala saxiixdeen Nairobi ee la isku wiidaarsanayay ganacsiga qaadka iyo kalluunka kadib ayay ganacsatada Soomaaliya sheegayaan in aanan wali fursad u helin in Kenya ay u dhoofiyaan kalluunkooda. gudoomiye ku-xigeenka dalada kalluumaysatada Soomaaliyeed Muuse Cabduqaadir Ducaale oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa sheegay inay jiraan caqabado ay wajahayaan. ilaa iyo hadda heshiis 10 qodob baa la galay baa la yiri waxaana 10kaasi qodob ka mid ahaa in kalluunka loo dhoofiyo Kenya balse ilaa iyo hadda ma jirto cid ka tirsan dalada kalluumaysatada Soomaaliyeed oo loo yeeray oo lagala hadlay arrinkan ayuu yiri. wuxuu intaas ku daray in heshiiskan ka hor ay ku hongoobeen in loo yeero kalluumaysatada oo lala wadaago qorshaha la damacsan yahay. xilli la weydiiyay Muuse inay iyagu isku dayeen inay la xiriiraan dowladda Soomaaliya ama xitaa tan Kenya waxa uu sheegay in hadda ka hor ay mar madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kula kulmeen shir ka dhacay Nairobi oo arrinka ay kala hadleen. waxaan kala hadalnay in kalluunka aan keenno oo dhowr jeerna aan arrintaasi ku celcelinay si dukumiintiyeysan baan ula wadaagnay kadibna waxay nagu dhaheen keena balse si dadban baa lagula dagaalamayaa kalluunka waa yeel tag lama dhahe ee wuxuu ku tagayaa la tusaayo yiri. waxaa lagu saarayaa canshuur badan oo aadan qaadan karin. waxaa kaloo jira xujooyin badan oo ay ka mid tahay xagga dhoofinta. waxay ahayd in dhammaan arrimahaasi mid loo dul istaago oo laga wada hadlo horey ayaana ugu daalnay ayuu yiri. wuxuu tilmaamay in ilaa iyo haatan aysan jirin cid isu timid oo arrimahaasi ka hadashay haddii ay dowladda ahaan lahayd ama ganacsatadaba. Muuse Cabduqaadir waxa uu sheegay in iyagu dhankooda diyaar u yihiin inay dhoofiyaan kalluunka balse ay jiraan waxyaabo badan oo ka horeeya. waxaa ka horeeya qaabka kalluunka loo keeni lahaa iyo qoladii qaadan lahayd. mar haddii ay labada dowladood aysan daacad ka noqon kalluumaysatada kalluun ma dhoofin karto ayuu yiri. dhanka dowladda Soomaaliya oo xiriir lala sameeyay si ay uga jawaabaan dhaliishaasi ee kalluumaysatadu soo jeediyeen lagama helin wax jawaaba.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishan booqasho rasmi ah ku tagay dalka Kenya kulamo uu la yeeshay dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayayna ku kala saxiixdeen heshiis 12 qodob ka koobnaa kulankaasi kadib labada madaxweyne ayaana shir jiraayad oo qabteen waxaa lagu shaaciyay heshiiskaasi oo uu kamid yahay in si dhaqso ah dib loogu bilaabo qaadka Kenya ee loo dhoofin jiray Soomaaliya heshiiskaasi qaybta qusaysa qaadka uu dhaqan galay 24kii bishan diyaaradii ugu horeysay ee sidii qaadka laga soo dhoofiyay Kenya ayaana ka degtay magaalada Muqdisho muddo kadib 2 sano oo xayiraad uu saarnaa balse ilaa iyo haatan waxaana jirin dhanka Soomaaliya qodobada ay codsatay wax laga fuliyay guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen Ubal News fadlan ku soo biir channelkan oo kamid noqo saaxiibada ku soo xirmaya ee ka hela arkan wararkan ku bayno aragtidaada daawada halka oo san ugu reeb muuqaalkan oo sii share garay asxaabtaada laagtaadana waa inoo dhiirigelin waana ku maasantahay daawashada iyo la socodka warka channelka Ubal News